kulan wacan daawadayaal halkan waa barta rashka media dabcan muuqaalkan waa muuqaal kale oo dabcan cusub maanta waxaan kaga hadli doonaa muuqaalkan natiijooyinka la yaabka leh ee ka soo baxay toddobaadka labaad ee horyaalka waddanka Ingiriiska inta u gudbin muuqaalkan xiisaha badan waxaan ka codsanaynaa oo ku weydiisanaynaa inaad subscribe like iyo share sidoo kale halkan ku soo biir waa hoyga madadaalada iyo murtida dabcan aad wax walba ku xiiso geliya ciyaaro iyo sheekooyin aad ka heli doonto maanta waxaa la joogaa Zakariya Cabdi oo dabcan marka laga hadlayo Soomaalidu waxay tiraahdaa Zakariya dabcan hadba qofku meeshu kaaga soo horeeyayo waagnimo iyo marka Zakariya aad ba wax weeyaan howlahan iyo aad ba ugu taqaanin arrimaha ciyaaraha ku aadan ee marba bartiisa uu kaga hadlo laakiin maanta wuxuu igu casuuman yahay barteeda Rashka Media ugu horeen waa markii ugu horeysay Zakariya oo barta ka soo muuqato soo dhawaystay Rashka waa dhaweey waan ku mahadsantahay casuumada iyo fadhiisay sidoo kale tan asxaabta ku xiran Rashka Media waxaan leeyahay waa insaan meel kasta daafac calanka joogtiin fadlan janaalkan ku xirnaada fariinta idin diraa waxay tahay wax walba oo dhameystiran macluumaadka ka heli doontiin sida caadiga YouTube wuxuu u baahan yahay qofka in la rukunto subscribe laga dhigto kadibna la isla socdo marka intaas aniga tala aan idin soo jeedin lahay barnaamijkeena soo ka dhawaajin Rashka waxaan ku soo qaadan doonaa waxyaabihii toddobaadkan Premier League ka dhacay natiijooyinka la yaabka lahaa maadaama horyaalka isbuucan waxyaabo badan oo xiiso laga diiwaan galiyay waa sida dabcan Zakariya horyaalkii baa bilowday waliba waa toddobaadkii labaad kooxaha qaarkood waxay u ahayd xalay toddobaadkii ugu horeysay ama habeenkii ka horeeyayba bal haddaan eegno natiijooyin waxa ka soo baxay lama filaan ah kulamo aad loo sugayay waxaan ka bilaabi doonaa wiilasha Ole Gunnar Solskjaer oo u ahaa toddobaadkii ugu horeeyay waxaa lahaa dabcan xidiga bay soo qaateen way ishubeeyeen ninka aad loo sugayay wuxuu ahaa xidig lagu magacaabo Van de Beek oo ciyaarta qeybta ka soo galay bal Manchester iyo Crystal Palace natiijada ka soo baxday wax la sugay ma ahayd waxa la sugay ma xaqiiqatan sababta Manchester United garoonkeeda joogtay xilli ciyaareedka hore waxay ku dhameysay horyaalka qaybihii dambe ayagoo aan laga badin 12 kulan marka Crystal Palace ka badisay waxay aad balayaab ka weyn toddobaadkan aysan jirin laakiin markii la fiiriyay daawadayaasha way ka warqabaan bandhigii Manchester ee gudaha garoonka ka sameeyeen awgeed waxa la dhigi karaa kooxda u qalantay in laga badiyo naadiga Ole uu soo xushay safki koowaad ma ahayn koox u diyaarsanaa inay naadiga caawiyaan ama magaca hore u sii wadaan marka overall in United laga badiyo waxay aad wax laga yaabay laakiin bandhiga isla markii la fiiriyay Crystal Palace ay u qalmeen in ciyaarta guuleystaan waqti marka fiirso kale Ole Gunnar Zakariya Cabdi dadka aad bay u sugayeen kulanka Old Trafford buu ahaa kulankooda ugu horeeyay buu ahaa ciyaarta waxaad ka mid ahayd wariyaashii aad ula socday ka hor iyo kadib Manchester waxa ka khaldanaay Manchester waxa ugu weyn ka khaldana horta waxay tahay daafaca oo sababta xil ciyaareedka horena in way jirta laakiin mararka qaar intooda is dabooli jireen laakiin kulankii ay hadda la ciyaareen Crystal Palace qadaadka u galay ninka lagu Victor Lindelof wuxuu qaladadan la qaadan karin goolahayaha David De Gea ma buu ekanin naadiga ku qanacsan sida guud waxa muuqata xitaa garbihi United daafacyadii kubada ma aysan karin halis badan meesha Manchester United ku u dhinteen wuxuu ahaa difaac oo ay goolahayada la israacsiiyay qaladka labaadna wuxuu ahaa Paul Pogba oo laba toddobaad coronavirus qabay oo karantiil ku jiray in si toos shaxda loo soo geliyo adana qalad kale ee waxay ahayd in nasiino la siiyo oo Donny van de Beek shaxda la soo geliyo waxa kale jira problem ahaa Nemanja Matic oo naadiga protection u noqon lahaa afar difaacyadooda qaran lahaana waa la fariisiyo waxa lagu soo bilaabay marka McTominay waxa la leeyahay marka macalinka shaxdu soo xushay ay qaladaad ka dhashay haba ugu badnaa daafac mas'uuliyad darada sameeyeen waa gartay dadku waxay isweydiinayaan sheekada David De Gea ku dhacday waxaan arkaynay iyadoo lagu helay dib jazaa xariiqadii uu ka soo baxay kadibna Wilfred Zaha oo lagu bedelay xidigoodii uu ka dhaliyay De Gea misleedahay wali moraalkiisa oo Trafford kuma qanacsan waa muuqataa ninkan De Gea hadda waliba inuu dadka ka caan sababta goolhay Dean Henderson kooxda lagu soo celiyay wiilka mustaqbal fiican la 2 sano ama lagu diray marka waxay ahayd De Gea maadaama uu ogyahay in Henderson la soo celiyay inuu kaalintiisa qaato laakiin hadda bandhiga xumadu sameeyay waxa isleeyahay Henderson faa'iido weyn ugu jirtaa la yaabna ma noqon doonto mar dhow hadii ninkaas Ingiriiska goosha koowaad Manchester la siiyo waa gartay sidoo kale waxa baraha bulshada wareegayay xidiga dhawaangalka ah ee Donny van de Beek in markii ciyaartoydu canaantay oo dhaay waxaan wax weeyaan macquul ma ahan isagoo dib ciyaarta ka soo galay buu gool dhaliyay misleedahay ninkan inuu isku maleeyo markii meesha wuxuu maleeyaa kooxdiisa hore waa sida laga baahan yahay ciyaaryahan cusub hadda meesha marti ka noqoto waxay ka dhigan tahay laqabsiga ku yeelanaya laakiin ninkan wuxuu muujiyay gool uu dhaliyay si fiican uu ciyaaray inuu ciyaartoyda canaanta ama uu hadlo waxay ka dhigan tahay spirit inuu leeyahay marka waxaan isleeyahay Donny van de Beek iyo Manchester waa isku baahan inta badan ciyaaryahan kasto Manchester imaanay waxa laga rabaa inuu spirit iyo raganimo leeyahay Bruno waa taasoo kooxda ku qabsaday inuu spirit leeyahay inuu hadlo inuu shaqo fiican qabto aniga waxaan isleeyahay Donny van de Beek waa loo baahan yahay United shaxda koowaad ka soo muuqdo waa gartay Zakariya marka Manchester ku qiimeyn karnaa kulanka ugu horeeyay in ka suuryaalka bila uu yahay haddana markaan ka qeys qaadano
xidigaha qaabka u ciyaarayaan difaacyadoodu aad u fashilmay waxaan arkaynaa Wilf Zaha qaabka uu ciyaartooydu u ciyaarsiinayay Manchester xilligan marka fiirso kale kulanka ay soo bandhigeen awoodooda ma lagu qiimeyn karaa laguma qiimeyn karo Manchester United xil ciyaareedka waxaan ogeyn dabcan inay ku dhameysteen kaalin saddexaad Premier League qaybihii dambe aad u fiicnaayeen Bruno wax weyn ka bedelay iyo sar ciyaar waa laga badiyay waa sax dib u dhac way ku tahay laakiin aniga waxaan isleeyahay Manchester United hal kulan laguma qiimeyn karo kooxdu way soo laaban kartaa laakiin mid hal ogaada Manchester waxaa loo diray fariin cad oo la dhahay ciyaartooyda hadda haysteen kuma filnaa suuqa gala wax keena sababtoo ah Manchester City iyo Liverpool oo labada kooxood Real ugu xooganaa ciyaartooy ku soo kordhisteen marka Manchester United waxay ayagan wax inay keenaan laaksan hadday ku soo laabtaan waxa isleeyahay United top 4 u dagaalami karaan laakiin loolan Real qayb kama noqon karaan waa kartay Ole Gunnar maxaa isleedahay kulankaas dabcan way kaga baxday oo ku aadan xidigaha suuqa uu ka soo qaadan karo sidoo kale kaamirooyinka waxay qabanayeen ninka suuqa u qaabilsan Edward si fiican u soo qabanayo aad ciyaartu u eegayay marka qaarkood aad u careysan Manchester inta la gaarin 5 October oo suuq ku egyahay maxaa isleedahay boos ku baahan tahay marka horta la sheekaysta taageerayaasha Manchester United baahida ay sheegeen aad u badan tahay waqtigan uu yar yahay 5 October oo suuq xirmaya Manchester waxaan isleeyahay in priority waxyaabo u baahan tahay waxa qaybka daafac garabka bidix inay helaan daafac dhex inay helaan sidoo kale inay helaan ciyaartooy saddexleeda weerarka lagu soo kordhin karo aniga waxaan isleeyahay Donny van de Beek ciyaarahan fiican waa naadiga wuxuu ku soo kordhin karaa laakiin baahi ka badan jirta runta la fiiriyo oo garabka bidix oo kale in la keeno ama daafac dhex in la keeno marka waxaan isleeyahay Manchester waqtigu aad u yar hadii laba saxiix ay sameeyaan way u fiicnaan lahayd inkastoo saddex saxiix ku fiicnaan lahayd laakiin space-ko yar iyo Edward Wood lacagta laga qaadi karin iyo saameynta coronavirus-ka United waxaan isleeyahay laba saxiix ku fiicnaan lahayd inay helaan waa gartay Zagir waxa aad doonaa sidoo kale waxaa jirtay xalay kulan weyn baa la ciyaaray waliba todobaadada ugu horeeyay kulanka ugu adag iyadoo todobaadkan kulanka la sugi doono Liverpool oo kulanka ugu horeeyay Leeds ay ka yaabsato 4 iyo 3 gool ugu kartay kulan 7 gool iska dhaliyay Mohamed Salah oo raaxaysto 3 gool dhaliyay xalay Chelsea waxa lahaa gurigoodii bay joogaan xidigaha Fartis iyo Thomas Werner iyo macalinkooda iyo Liverpool waa laga yaabin doonaa laakiin 2 gool baa loo kala baxay Mane baa baashaalay ninkii daafaca Christensen Rose buu qaatay ciyaarta xalay Chelsea oo ka fiirso kale maxaa ka qaldana Chelsea waxa ka qaldan ugu horeeyay waxay casaankii qaateen horta ciyaarta dishay laakiin sida guud marka la fiiriyo ciyaarta qaabka ku socota Liverpool xoog badneed mid kale marka la fiiriyo macallan baad wali wuxuu ku dadaal ugu jiraa inay kooxda sal dhigato aqoon si fiican mala kooxdiisa 11 dhameystiran ma sameysanin ciyaartooydu kan wali dhaawac waxa ka waxaan isleeyahay marka lambaad kulankan uu ku soo degdegay waxa u fiicneed koox kale inuu la ciyaaro markuu dhowr 5 kulan amal soo ciyaaro kooxaha dhexe kadib in Liverpool and Man City isqabtaan xala marka Liverpool kala buuxuro fariin inuu diro fariintan uu diray oo lambaad bariyahan saxaafada iska weerarayeen lambaadkan gurigiisa ku garaacay Liverpool waxay muujin u diyaarsan Real inay difaacdaan laakiin Chelsea waxaan isleeyahay kooxda la qabsi badan u baahantay wax badan Chelsea ka dhiman waa gartay dib aan u laabano shaxda lambaad uu ku soo galay Stamford Bridge ba ahayd kulankooda ugu horeeyay Isniintii Brighton mid dabcan ka soo badiyeen shaxda wax ma ku muuqdaan qaladaad xidiga laha in lagu soo bilaabay macnaheed ku galiyay mise guud ahaan dhaawacay sameeyay way jirtay lambaad ciyaartooydu heesta qaarkood marka la fiiriyo Mason Mount iyo Kai Havertz oo kale ciyaareen garoonka inuu ka soo galiyay laba nin oo isku boos inuu tanaasul sameeyo hal nin kana ahayd sidoo kale Chelsea marka la fiiriyo ciyaartooyda kale oo keen Marcos Alonso kaleeto kulan kasaas u adag oo weerarka Liverpool dib badan inuu iska fariisiyo Cesar Azpilicueta kale garabka bidix ka dhigtay maadaama boosas kala duwan ciyaari karo meelahaas oo qaldan macaanka isla laakiin si kastaba ahaata lambaad casaankii wuxuu waxa dilay Christensen iyo qaladkii uu galay goolahay Kai Arsenal kooxda gabi ahaan ka taqalusay ayagoo 10 ciyaaryahan oo qalad wuxuu ka soo gal laga soo kaban karin kooxda niyadda ka jabiyay waa gartay Keba kulanka xalay markii la shashadu qabteen waliba ka hor taageerayaashu waxay Instagram-ka ku dalbadeen dabcan iyo Twitter-kaba in la tijaabiyo Jack oo xitaa dhayaa soo agaasima aha bal mal ciyaarsiyo waxa la arkay Jack oo garoonka jooga oo talooyin siinaya ninkan Keba xalay isla markiiba kubadii uu siiyay Mane waa looga sida ahayd waliba Mane meel wuxuu ka soo carar aad u fog isagoo markii hore kubad qalday baas qalday dhiibay oo ka xanaaqay wuxuu isla baaska soo sax inuu gool kama haynba marka wuxuu arkay Keba dayacan uu ka dhaliyay fariin u tahay lambaad in Keba wali uu saahin fit way u tahay 100% xilli ciyaareedka hore lambaad waxa uu kulamada qaarkood inuu iska fariisiyo Keba soo ciqaabanin 38 goosha keenay aniga waxaan isleeyahay Chelsea lacag kasta bixiyaan waxay qalad ku galeen soo daahista ay soo daahiyeen goolahay inay keenaan waxay ahayd priority kuwaadba inay goalkeeper ka bilaabaan waxay ogyihiin qaladka meesha ku jira inuu goolahay in Keba meesha laga saaro oo la keeno goolahay Mendy hadda uu imaana kooxda ka goormo imaana mar Liverpool ka badisay mar ninkan Keba ceebtiisii badatay waxaan isleeyahay Timo Werner iyo Hakim Ziyech iyo Kai Havertz iyo ciyaartooyda la keenay waxa ka mudnaa marka hore goolahay in la keeno marka Keba waayis Chelsea waa u dhamaad sida muuqata